بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي ماندي كوربا كحرا سومالي يردن با اسكاله. أنيقو أحمد نور محمد عبد الله أنا وينين دادهين يا سادي قبرتين ولا ليال سيدا ولا ليال عن لسعنو و أقنهي بني آذن إنا النهي إسلام مركانا الدنيا دا إلهي لول نقد جيي أن كل والله سيدا جودنا أي نوغا حيث الصومالي نمدو الدون كنا نو يقانو marka arrintu sidaas ay tahay cabirka noocaasihi hoggaanka dalka ugu sarreeyaahi kow midka ugu horreeya maadaama uu siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo arrimihii bulshadu asaga ay wada fiirinayaan oo asaga la doortay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud nabigeenna waxa uu yidhi calayhi assalaatu wassalaam naftaada waxaad la jeceshahay walaalkaana la jeclow waxa weeye hadday dumar tahay hadday rag tahay waa arrin taariikheed bini'aadamnimada ku suntan waa qiimayn ay iska leeyihiin bini'aadanka rag iyo dumar in si siman loo wado waxaana jira marka arrinta saa markaad ugu foognaato oo dadka wanaaggooda aad sinto inaadan u oggolaanin dadkeenna dhexdiisa annaga dhexdeenna ma ahane cid kale inay mooqasho ka shaqayso ku roorroorto waayo ummaddaanu culimay leedahay horay baanu kuugu sheegnay waxgarad bay leedahay oo jaamicadaha heer kastaba ka soo gaaray diintii islaamka ayaa dhex taaloo kutubkii baa dhex yaalla oo wax kasta oo adduunyada jira ka dhacaya ku soo socda weligii aan duugoobaynin oo wax walbaba laga helayo asaga laftigiisana cidda ku xeel dheer lilaahi iyo daacadnimana ilaahay uu u abuuray ayaa fasiraadda dhiigga iyo dhuuxa iyo ruuxa qofka ilaahay uu ka geliyaa maadaama ay yihiin warasatul ambiyaa culimmada inaad kala tashato hoggaanka dalka qaybta ay ku leeyihiin waa qaybta ku toosan diinta islaamka ah dadka waxgaradka ana qaybta siyaasadda teknolojiyadda iyo diyaaleetikada ku socota dad wax ku fahmaya oo rag iyo dumara ayaa buuxee
waxaasoo dhan jaalle madaxweyne hoggaanka adaa ugu sarreeya madax meel ka sarraysa oo la salaaxaana ma jiraan baa la yidhi adduunyadu danay iska leedahay war ka dheerow shisheeyaha soomaalidu waxay tirahdeen ninkii tiisaba daryeela ayaa tu kale ku dara war dowlado adduunka caan noqday baa jira caan la yaqaano bannaanka jooga oo ah kuwa loo adeegsado ummad alla ummaddii la halaagayo ummad alla ummaddii la baabi'inayo adduunkan ilaahay baa iska leh war wax fahan war wax garo war wax dhuux ilaahay marka asagoo adduunkii iska leh inaad qof kale oo bini aadana aad siiso awooddii ilaahay oo aad faraha ka saarto oo asaga aad ka baqdo ama asaga aad raacdo ama asaga mar walbaba uu meel kuu wato waa khalad isla markaasna xukunka hayntiisa ummadda oo dhan oo soomaaliyeed baad u haysaa oo adigu adeegaa tahay waa kaaga dignay ciidamada qalabka sida ciidamada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed oo sharafta leh oo ummaddu ummad wanaagsan tahay rag iyo dumar ha u bahdilin dadka kale waxba ma kala qarsanayno runtaan isu sheegaynaa bar baa gabdhihii soomaaliyeed carabta loo wada raray waa khalad diintu ma qabto gabar maxrabkeeduusan la socon in la iska tuurtuuro wax diintu ay qabto ma aha ragga soomaaliyeed ee diiday ku dhibtooday lagu hijaajahmaan say lacag u raadinayeen ilmahooda inay koriyaan iyo hooyadii hilbaheeda loo jarjaray ee dahatay in mar walba la yidhaahdo xantoobsada idinku lacagta siisiiya meeshaa rabtaadna kala baxa waa qalad iyadana horaanu kuugu sheegnay waxaan niri ama ha noo yaraato ama ha noo badnaato ciidamadayada waa in ay u adeegaan carruurta dumarka duunyadeenna dhulka ilaalintiisa iyo adkaynta diinteenna islaamka ah waxba kaama ana qarin waxaa kale oo jira markay laba qolo ay isqabato oo soomaali gudaheeda ah ilaahay baa caqli iyo maskax iyo dareen ini siiyey in culimo iyo waxgarad iyo dowladdii hoggaanka sare uu joogay la dhex galo la dhammeeyo xaqana isyaalyaal maaha xaqu laba maaha saddex maahan xaqu waa hal qolo walbana meeshay deggan tahay waa la yaqaan ninna bilaash uma qayliyo ninna hoogayay ma dhaho ninna ba'ayay ma dhaho haddii nin walbaba la ilaalinayo xaqiisa soomaaliduna maxay tidhahdaa dad cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaaciye ilaahay baa suuratu walcasri waxa uu yidhi watawaasow bilxaqi ku dardaarmaya xaqa watawaasow bisabri ku dardaarmaya dulqaadka oo waa maxay waa mu'miniinta ayaa xaqa iskula dardaarma iyo dulqaadka dadku markay mu'miniin yihiin soomaaliya oo nin walba la og yahay guriga uu degan yahay meesha uu degan yahay
la wada fiirsanayo cadow shisheeye ay soo dhexgelayaan oo ummadaha ay la hadlayaan doqomiin baad naga dhigteen bahluuliin baad naga dhigteen dad juhalaa baad naga dhigteen ujeeddo ka leexsan middaa kii wataana waa nin bini'aadanimadiisu cad iyo aad ay u hoosayso arrintaa maanta waxay dul fadhidaa reer khaatumo oo markii hore SSC oo markii hore dhiigooda iyo dhacaankooda iyo ubadkooda boqolaal kun oo dad ah halganka ummadda Soomaaliyeed midaynteeda u soo halgamay dhulkoodana aad garanaysaan isla markaasna aad ogtihiin inay u heelan yihiin ummadda oo dhan oo Soomaaliyeed oo aan la kala saarsaarin oo aad la socotaan ummadan horay anigu aanu idhi war walaalayaalow laynima khasbaayo waayo diinta ilaahay qofku marka uu dhasho xornimo ku dhashaa khasabka diintu ma ogola war idinku haddaad rabtaan keligiin iska go'a laakiin war dadka kale ee Soomaaliyeed meelaha ilaahay makaniyey ee ay degan yihiin kii idin soo raacan ahla wasaalan kaan idin soo raacaninna meeshuu raba ha ka baxo laakiin wareerka iyo khasabka iyo saduulaynta ha laga daayo mideeda kale ninku yiri adigii kuma rabo isla markaas ninku yiri wax allaale wixii ku gubi lahaa wixii ku dili lahaa wixii ku gowrici lahaa wixii ku baabi'in lahaa wixii cardiiqaha kaa dhigi lahaa yaan haddana hoostaada ku beerayaa isla markaasna guriga aniga aan leeyahay meel aan aniga joogo adigu cagaha sooma dhigi kartid misana yiri koodii aad wax tarto koodii aad wax soo qaata koodii meesha ka shaqaysta waa xeelad waa sir waa nidaam waa kugu cayaaraynaa saan rabaa kaa yeelaynaa in mikrofon lagu soo istaago ayadana waa khalad waxaa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa lax walba shilalkay isdhigtaa lagu qalaa meesha hoggaanka sare talooyinka aad dhigato oo adigu aad isdhigto meeshaas ayaa lagaaga shaqaysanayaa waxa weeye duluucda meesha ay ku biyo shubanayso SSC dhulkeedana ha looga baxo kibirka iyo ku doondoonkana ha laga joojiyo si cad waa inaad u tiraahdaa madaxweynihii dalkaa tahay hoggaankii dalkaa tahay waad u dhaaratay aniga asxaan ha ii suubinin Soomaalida kale asxaan ha u suubinin adiga nafta aad leedahay asxaan u suubi waayo waad dhaaratay waxaanad ku dhaaratay dalka iyo dadka iyo diinta inaad dhowrayso markaad saas yeesho oo aad dhowtana ilaahay waxba uma ada tarini naftaadaad wax u tartay adigu nafta aad leedahay ayaad wax u tartay hadda khasab dhiigaana anagu rabin dhiigaana anagu jeclayn ummadda Soomaaliyeed kulligood inaan soo dhaweyno la noolaano on walaalnimada ogol lahay dhiig anagu aanan rabin habka maamulka adigu aad wax u hagayso hanagu gelin dhiig Soomaaliyeed ciidamada jooga Soomaaliyeed meel walbaba ciidamada la soo geliyo dalka loo soo tababaray حسن علي خيره iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalka ciidan u soo suubiyay
نول بنا دول بولي هاي دات كان إلى هاي باليه دول كان سيي إذا ما كلا لنعدك تامر كهالكا ودقي ما أركي كرينو نمانك دور جرنوا كوشة إماراتك إيا مصر ومدى يدا داتك يغا مايا إذا مدى يدا وانا أنيق كوغويري أودا وحوال بابا لا حرير كلا حرير حق إذا مدى سوماليا يا إذا لغو ذي هلا يا تببرنا وإسكا عدها إذا هالديار كوا نونا ديتل نونا فيعن نونا ونكسن هرمر يا مستقبلنا لغا غارايو او يغو هريسو دولة تركيا إمارات بحال نولا دبا سعوتا waxaad noola daba socoto ma garanayna annaga runtaan marka kuu sheegaynaa xaqiiq baan kuu sheegaynaa waxyaaba aan kaa qarinaynay adigu haddaada garan ayaa jira dalkan ka miraysi ma noqonayo no one can destroy anything qof burburin kara waxba ma jiraan oo responsible ah meel kastaba adduunyada meeshuu hanti geysto meeshuu wax geysto waa in la helaa facts and figures ay ku dhacday ninku hantidaas waxaasuu yeeshay ummaddaa loo shaqeeyaa kibir iyo nagnag iyo dhulkana ummadda soomaaliyeed oo dhan baa leh nin dhul iska googoosan karo iska qaadqaadan karo waxayn kara sharci iyo nidaam bay ku socotaa wuxuu waa municipality dowladnimo iyo hab weeye in la farataystana ummadda soomaaliyeed sidii warqad qashinka lagu aruurinayo oo la soo xaabinayo oo laga fogaynayo meelo hadhow la gubayo dadka soomaaliyeed yaan laga dhigin talana in annaga nolo ku yimaado maahane talooyinka qaarkood yaa naloola imaanin hubka iyo cilmiga waxaa weyn cilmigaa weyn waayo hubka cilmi baa lagu suubiyey meeshii marka cilmiga aan adeegsan lahayn qaylo burun qabyaalad qurun waxadid waxboobid isticmaaru shaqayn han xaasidnimo balaayo dagaal xaqdarra ah waxaasoo dhan war waxaas ma adduunkao dhan masaasan ku noolaanaynaa casho noolba reerkaagan oo col iyo laayaana ilayn coodku kuguma bato caana kama maashid baa la yidhi haye madaxweyne alla madaxweynihii yimaada dhibaataa daba socota madaxweyne kasta oo yimaada waa saasay waa keerkalay waa saasay waa keerkalay waa saasay waa keerkalay waa saasay waa keerkalay sababtu waa maxay markii hore akhlaaqda iyo nidaamka iyo habka iyo dishibliinka laga leexday waayo cilmigii oo dhanba waxaa laga dhigtay qabyaalad iyo qurun iyo waxaan waxba tarayn iyo been iyo calaamatul munaafiq nabigeenna uu yidhi salaasatun waa saddex idaa xadata kadaba markuu hadlayo been buu sheegaa wa idaa outmina khaana markii la aamino oo wax lagu aaminana waa khiyaama wa idaa owcada akhlafa haddii lala ballamana ballanka siduu ahaa ayuu ka leexdaa oo uu khilaafaa nin meel loogu soo hagaagayana ma aha laa haaulaa'i walaa haaulaa'i halkaana ma jooga halkaana ma jooga halkaana ma jooga halkaana ma jooga calaamadka munaafiqiinta lagu yaqaano weeye marba meel buu ka buskicinayaa waxaan idiin sheegayaa sharciguna ha sarreeyo sharcigu ha sarreeyo sharcigu ha sarreeyo hana ku fadhiyo xaqa midka ah oo kutubka qur-aanka ah sida uu sheegayo qofkii dulmi wada war ka joogta ha la dhaho hadduu ka joogsan waayo soomaalida oo dhan ha isugu tagto war hoy balogaada
أما جودة شوغا أما دبت شوغا نكستا صوماليا قردران هل يرادو كتشوكسو قردرده وايا دادكينا واي موقدان dhulkiina waa muuqdaa hantidiina waa muuqataa mas'uuliyadda ilaahay ina saarayna waa muuqataa mar walbaba boqortinimada ilaahay baa qof u garta garashada uu u gartayna qasadkeeda iyo ujeeddadeeda asaga ayaa yaqaana waxa weeye marka qofku marka uu diido wanaagga waa in tallaabo laga qaadaa waa inaan marka loo soo qaylqaylin waa qabiilka yahay waa taanay adaga naloo daleeyahay keer kale marka horeba toosiya dadkan Soomaaliyeedna aniga been ma aqaano kulli waa isdhalaleen waa wiil iyo adeerkii iyo abtigi بلايا هرجها يدين لولايسا إبليس بهرجها يدين لولايا شيطان بهرجها يدين لولايا ما فردان ويا عقل جني ودم بوحكو سو عروري أو وحكو راتتان أو وحكو قالتان بين يا قبيالك إلهي ماله سنوسو بن نا واد أديسين إلهي قبيل كرالي بكيه واللي تعارفوا بيرينا سجرتان يا تقول سكنا يا تقول سكرينين يا كل حلي كريا يا دحلي كنا يا كل حلي كرينين ومتى شرعك هواي انت كرون صمان واتنك حقسي وبلا يكون طليسي وكويسا كرسي صومال لنا هف وحان كلو وحيرتان ما جرتو دad كانوا وايس ودا دالين وايس كو ودا ديق وا ودا Soomaali meel bay ka soo wada jeedaan waxa way awrkacsiga khiyaanada ibliisku ka shaqeeyay wax lagu raadsaday weeye dad baana abuuray raaca marka tan ilaahay waxaan hadalkaygu ku soo aruurinayaa dhiigaas daadanaya مسؤولية أقصى الرئيس أمد الصوماليات وحسن شيخ محمود دنبيغاس وحبات كيالا نيسا كاما قرنا أيوه وي أنيقو ولال كي باتاي ني صوماليات باتاي چنال هذا ربان نارت هذا مرحبو أنيقو معركي كرايو قف صوماليا أو قف صوماليا وكالي دي كدادين أيه هذا العد وعافيمات قبسي واتقدر انتينا كبحاني هذين كبحنا إذا ما قلب كسيدة الصوماليات بنكسو سيدين النادا وكارنتي وتحقي النجو ولا على قرب سينا النجاشات سينا أيك سنو الكود الله قبنا أيو صوماليو ما حيتنا ننكي سوتشوك لقوايو سوتشي بسال لقهلا maanta aniga in maragta Ethiopia ay soo kacdo ama Kenya ay soo kacdo ama Mareykan ay soo kacdo ama meel dad iga soo kaco oo aniga la waxay anagoo aqoon leh anagoo garasho leh waxaan ku yiri war dadka xamar xataa la tasho oo aqoonta leh oo siyaasiyiinta oo rag iyo dumarba ka kooban xamar kaliya ka dhirgeysa ogow waa ku sheegay waa dambi marka dal adigu aad xukunto dalka oo dhan ala xukuma kulli Soomaaliya adiga xukuma ada u dhaartay min sayla ila raas casayr meel walba adiga xukuma haysnigi dhulka madaxweynenimadana adan ku aqoonsanahay ummadda Soomaaliyeed baarlamaankeedii aday ku doorteen sida wax loo doortayna dadku waa ogsoon yihiin qadaha iyo qadarkana ilaahay baa iska leh ilaahay wuxuu uga jeedayna waa wax u qarsoon waa wax meel u yaala lama garan karaayo asaga og dhagar kastoo la dhigana oo bini aadan u dhigana tan ilaahay baa ka weyn oo arrintu waa maxay waa akiidu kaydan dhagar ayaa dhagraya anna wixii ka yimid wixii ka dhashay wixii ka soo baxay na
qayb baa loo arkayaa wuxuu ilaahay uga dan lahaa ayaa shacbiga la tusayaa wixii hore lagu hadli jiray wixii hore lagu dhaqdhaqaaqi jiray wixii hore kursiga lagu raadinayay wixii hore lagu waxaynayay wixii baa la soo qufayaa lage ma sida farafarku dhulka u qodo yaa loo qodaya dadka la tusayaa ilaahay baa la tusayaa marka waxa weeye qof allaale qofkii sir ilaahay sameeya ilaahay ayadoo cad buu bannaanka soo dhigayaa sidii loo siray marka khayr iyo nabad baanu isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu